السلام عليكم martida sharafta leh iyo akhyaarta sharafta leh insha Allah maanta waxaad la wadaagi doonaa KuCoin sida la isaga registereeyo iyo sida ID-ga loo geliyo iyo waxyaabaha ugu muhiimsan KYC-ga si ay ICO-gan uga qayb qaadatiin. Marka KuCoin linkiga hoos aad dhiga markaad click siisid waxaa kuu soo bixi doonto sawirkan sida ku qoran. Sawirkan sida ku qoran arkaysiin emailka waa taasa emailka halkaas aad gelinaysaa. Waxaa kaloo gelinaysaa halkan password aad iyo aad strong u ah oo adiga aad dooratay. Marka aad geliso wuxuu ku gudbinayaa meesha kaleento oo ah ana hadda waxaas oo dhan waa dhameeyay laakiin qaabka oo ugu fudud marka waxa ay gelisid email ku soo dira emailka waxa taabaysaa confirm aad taabanaysaa. Emailka marka aad taabatid oo waxa dhan aad confirm ka dhigtid marka waxaa la rabaa inaad documentiga gelisid. Documentiga marka inaad gelisid waxaad taabanaysaa KuCoin halkaan oo kala imaanaysaa halkaan oo kala markaa imaatid halkaan oo kala imaanaysaa spotlight aad taabanaysaa. Spotlight halkaas ay ku qoran tahay oo qaabka ugu fudud kugu sharaxi doono. Spotlight markaad taabatid wuxuu ku geynayaa meesha ICO-ga hadda diyaarka ah inta maalin oo ku dhiman. Marka ICO-ga waxba adiga ha fiirin hoos u deg. KYC-ga aniga hadda meeshan verified ay ugu qoran waa arkaysiin. Marka verified guys idinka kuguma qorno marka waxaad taabanaysaa check aad siinaysaa. Markaad check siisid waxaa kuu soo baxayso waxaa insha Allah kuu soo baxayso kan ma ahan waxaa kuu soo baxayso saddex meel oo sawir la geliyo. Meesha ugu horeyso waxaa gelinaysaa driving lesson-ka marka emailkaaga iyo addresskaaga waa fahmaysin kulli meel aad iska registeraysan waxaa gelinaysaa addresski wax dhan gelinaysaa marka wax dhan gelisid sawirka ugu horeeya waxaa gelinaysaa driving lesson-ka sidaana gelinaysaa. Okay, driving lesson wajiga ugu horeysa gelinaysaa waa sawirka ugu horeeya markaa gelisid kan ku xigo haddana waxaa gelinaysaa driving lesson-ka qaybta dambe markaa gelisid kan dhaxa waaye kan ugu horeeya wajihadaada gelinaysaa kan hoosane kan dhaxana waxaa gelinaysaa qaybtan dhabarkan dambe. Waxaa soo haray kan hoose kan ugu hooseeyo waxaa lagaa rabaa adiga iyo documentigaaga iyo warqad yar oo aad ku qortay KuCoin keliya iyo taariikhda maanta iyo saxiixa iyo ID-ga adoo saas u haayo aad sawir qof inuu kaa qaaday aad iyo aad ugu fiican tahay. Qof aad kaa qaadayo wejigaaga waadixa marka wejigaaga aad iyo aad waadix u ah marka waxaa ku qoraysaa KuCoin waxaa kaloo ku qoraysaa taariikhda maanta waxaa ku qoraysaa saxiixaaga sawirka laysankaaga iyo warqadda iyo wejigaaga waa inay isla sawiran yihiin. Markaas inuu sidaan oo kala noqdo ma ahan kan waa qalad waa arkaysin kan dhinaca midig jira green saaran waa arkaysin greenkaas waa inuu noqdo sidaas oo kale clear u yahay wax walba clear u yihiin. Waxaa kale oo soo haray marka aad sawirka iska qaadid oo aad geliso waxaa soo haray waxaa lagaa rabaa wuxuu kaloo ku weydiiyaa driving lesson numberka ID numberkaaga ID kasta number uu leeyahay ID numberkiisa waxaa ku qoraysaa godka waa dareemi waxaa ku qoran ID numberkaas saas ugu qoraysaa. Marka insha Allah wixii kale oo ziyaada ana waa isoo weydii kartiin waa kaasaa waana mahadsantihiin waxna ka xishoonina wixii wax alla wax u baahantiin waa idinka caawiyaa wixii aniga tabarteeda intaas ugu muhiimsan. Hadda intaas samaysid isla berri waa lagu soo approve gareynayaa kadibna ICO-ga saas ugu qayb gali kartaa. Marka ICO-gana insha Allah waa isla wada gadan doonaa dadkii KYC-ga la soo approve garay laakiin intaas xoogga saara oo hadda video idinku sheegay step by step u sameey. waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi